dalalka waqooyiga adduunka ayaa laga soomi doonaa 20 saacadood in ka badan iyadoo goobaha qaarna ay cadceeddu kaba maqan tahay 2 saacadood wax ka yar. haddaba muslimiinta ku dhaqan goobahaasi ayaa culimmada soo weydiinayay su-aasha ah goobtaasi sidii loogu soomi lahaa. Honkebel TV oo su-aashaasi weydiiyey imaamka masaajidka raabidada ee caasimadda Helsinki Sheekh Anis ibn Hajar waxa uu kaga jawaabay sida tan. طبعا سمعنا أن هناك من يأخذ بمواقيت دول أخرى غير الدول المحلية. هذه المواقيت متعلقة بالناس الذين هم يسكنون في المناطق التي لا تغيب فيها الشمس. يعني نتكلم عن شمال فنلندا، مناطق أولو وما فوقها. فهذه مناطق إما أنه الوقت قصير جدا لا يكفي لأن تأكل وتصلي وتتوضأ وما إلى ذلك، أو أن الشمس لا تغيب أصلا في هذه المناطق، فهذه لها حكمها الخاص. فحكم الجنوب ليس كحكم شمال فنلندا. ففي شمال فنلندا هناك عدة فتاوى أنه إما أن يأخذ بأقرب منطقة زي جنوب فنلندا زي هلسنكي مثلا، وهذا الراجح عندنا في فنلندا، أو أن يأخذ بفتاوى أخرى كمن يقول أنه في تلك المناطق يأخذ جميع المواقيت للصلاة والصيام بمواقيت مثلا مكة إن أراد الوسط، فهو يأخذ بهذه صيفا وشتاء، فعندها يصلي ويصوم على تلك المواقيت لأن هذه هي المواقيت المعتدلة. لكن الأرجح أن يأخذ مواقيت أقرب مكان موجود فيه شروق وغروب وأوقات اللي هو جنوب فنلندا مثلا كهلسنكي أو ما شابهها، وهذا هو الأفضل بالنسبة لنا. أما هنا في الجنوب فليس الراجح لدينا وليس ما اتفق عليه من قبل الجمعيات والروابط الموجودة أن يؤخذ بفتاوى مكة والمدينة، فهذه ليست التي اتفقنا عليها بالنسبة لجنوب فنلندا. يعني أي فتاوى تتعلق بهذا هي ليست الراجحة لدينا. الحمد لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وما بعد. runtii waa ilaahay mahadi inuu ilaahayna soo gaarsiiyey oo sanadkan anagoo nabad qabno caafimaad qabno annaga iyo ummadda muslimiinta dhammaanteed inaanu ramadaankan soo gaarsiiyey. xaaladda ramadaanka ee Helsinki insha Allah sanadahan waa sanadii ugu dhaadheeraa. waxaan rajaynaynaa insha Allah in ilaahay mataqaana khayr iyo mataqaana sawaabka siiyo sabarka muslimiinta ugu sabrayaan ramadaanka dheer. haddii aan ka hadlo wax yar barnaamijka raabidada iyo sanadkan ugu tala gashay ramadaanka sidii sanadihii horeba waxaa jiri doona insha Allah sheekh dibadda nooga iman doona oo inta uu nala nooleyn doona insha Allah bisha ramadaan mataqaana inoo soo dirta mataqaana azar. waxaa jiri doona sida caadada taraawiix oo masaajidka lagu oogi doona iyo iftaarkii jamaaciga ahaa iyo wixii lamid ah. laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa in muslimiinta ay u sabraan sabarka dheer ajirna ilaahay ka xisaabsadan insha Allah. aad baan sanadkan waa 20 bay sanadkii hore 20 bay sanadkan 20 ama 22 waa runtii waa waqti aad u dheer. laakiin haddana sidii badana fadlooyinka iyo culimadu ay sheegeen qofku man istidaaca weeyaan istidaacada ay ku xirtaan qofka. waxaan rajayn doonaa ilaahay inuu qawsiyo oo runtiina way ka duwanay dadkii sanadadii hore la soomay waxay awoodeen inay soomaan. marka insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan wali wax dhibaato cidii dhibaato ay ku taana waxay jiraan rufus iyo waxyaabo loo ogolaaday. marka wax insha Allah waxaan rajayn doonaa inaan wax dhib badan aan kala kulmin doono dadku insha Allah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallam. sanadkan ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay wuxuu noo soo gaarsiiyey bishii ramadaan. ilaahay mataqaana subhanahu wa ta'ala quraanka noogu sheegay uu ku yiri subhanahu wa ta'ala oo ay ku jirto todoba uu ku jirto habeenka laylatul qadr leeyahay ay ku jirto. ilaahayna aayado badan oo quraanka noogu sheegay nabigeena sallallahu alayhi wa sallam oo inoo tilmaamay in aan ka raadin doono 10 ugu dambeeyay ramadaan. marka khayr fara badan baa ku jira 10 hore iyo 10 dhexe iyo 10 dambe sidaas loo kala qaybiyay. marka ilaahay waxaan ka baryaynaa raxmadiisii iyo maghfiradiisii dambi dhaafkiisa ramadaanka inuu ilaahay na siiyo. sida walaalkay iga horeeyay uu sheegay meeshan raabidada waxay sanadkan diyaarisay sheekh ugu imaanay dibadda kuma laabanayo. dadkana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay uu u fududeeyo maadaama 20 saac ama 22 saac ama 20 saac inta u dhaxaysa ay soomi doonaan. waa waqti aad u dheer. ilaahay baan agtiisa kaga xisaabsanaynaa mataqaana ajirka iyo xasanaadka ah.
hase yeeshee waxaa kaloo jirta aniga sanadka hore waxaan jiray camradaan jiray waxaan kusoo soomay 21 maalmood baan meesha kusoo soomay soo laamadkii iyo markaan isku barbar dhigno halkaana xoogaa waqtiga ka dheeraa laakiin halkaana xoogaa ka yaraha deganayd sababtoo ah xagga kuleylka aad buu u kulushaa qorraxda mataqaanay xoogaa tacab baa ka jira halkaana waqtiga dheer saasay ku yaraa ku kala duwan yihiin hase ahaatee waxaan diyaarinay annaga dana masaajidka raabidada waxaan diyaarinay xamlo ay qaadayso sharikad la yiraahdo sharikada Ridwan oo ah sharikada aan diyaarinay oo dadka aan ugu talagalnay muxuu ahaayay mataqaanay aan ugu talagalnay dadkii inay muxuu ahaayay aan siino Finland ka baxaya inaan siino cumro bilaash ah oo aan waxba laga qaadaynin meelaha kale marka aragtid dadka waxa laga qaadayaa lacag ama fiisa ha noqoto ama hoteelada ha noqoto ama waxay doontaan noqoto annaga waxaan ugu talagalnay inaan dadka doonaya inay soo cumraystaan inaan bilaash ku qaadno sanadkan aan ku soo celino bilaash sanad walbana insha Allah waxaan ilaahay agtiisa ka baryaynaa inay noqon doonto bilaashka sidaan ugu bilowna inay noqon doonto cumro walbaba sidaasaan u rajaynaynaa muxuu ahaayay waxaan bixi doonaa taariikhda markay tahay 15 ayaan halkaa ka bixi doonaa waxaan la haystaa waa 2 week ayay dadka soo joogi jiraan taasaan qaban qaabinay cid waxaan ku bixi doonaa tiro ilaa iyo hadda 8 qofood gaaraysa ayaan halkaan ka qaadi doonaa waan ku geyn doonaa dibadda ku geyn doonaa marka waxaan imaan doonaa dabiiqada Ramadaan ayaan imaan doonaa waxa kale oo jirta inaan sameyn doono qaban qaabin doono xaj halkaan aan ka qaadi doono xajkaana waxaan ku qaadanaa dadka lacag aad u yar baan ku qaadi doonaa 2800 oo euro ayay noqon doontaa marka intii hore u baxdana aad bay uga sheegteen amaan cumradana waxay ku bixi doonaan waxaan rajaynaynaa inay sheegan doonaan ayagana amaan xajkana waxaan u ballan qaadaynaa inay dadka noqon doonaan xajka ugu fiicnaa oo uguna sahlanaa ayaan u ballan qaadi doonaa waxaan kusoo dhaweynaynaa dadka muslimiinta ah guul iyo sharaf iyo ramadaan wanaagsan ilaahay inuu qoraheena uu ka xoreeyo qoorteena uu ka xoreeyo muxuu ahaa in sheeg naarta ka xoreeyo kuwa jannada loo qoray ilaahay nagu daro dambiyadeena in ilaahay dhaafo ayaan ilaahay ka baryaynaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي واحد آدم محمد طباع وحنا كفر أحسن هاي بشهر رمضان في دنوس فريسة ومصوب إنه إلا لبي رفسعه تاسع أنا ورقنا واحد بعطينا نيجرين نوام بتهون إني سكرية كوسومية سوماليا لا يتوسع عضو وبين ولا متاح فآد يد وسود وينا وأنا كفر أحسن هاي إن ما أنت كوسونا يورب أنكم مسلمين لبي رفسعه. الحمد لله رب العالمين. فرحد iyo faanfaan iyo soo dhaweynayna Ramadaan Kariim baan leenahay waa bishii barkaysnayd ee Quraanka Kariimka Ilaahay noo soo dejiyay alxamdulillah saas daraadeed soonkana laynagu waajibiyay 22 saacadood inaad ku soonto fiinaan 22 saacadoodna dee iimaanan wax xisaaban ayaan ku soomaynaa diyaar alxamdulillah mustaidiin. I hope Allah will make it easy for all of us, all the Muslim in the world and all the Muslim in Finland. I hope Allah will make easy for all of us in Finland too, because ours and other countries ours is different. But I think it's Alhamdulillah Rabbil Alamin, because this is how Allah made it. This is, you cannot deny that. So this is Ramadan, big name, the whole world. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So brother, I think I have nothing against that. I'm happy for that. Thank you. Yes. مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان. شو مقعيق بلا ومدنا معبودك أمانين يا رمضان. شو مقعيق بلا ومدنا معبودك أمانين يا رمضان.
مسكين يتاجر بشي لم يصوب إسلامكم مدوبين يا رمضان مسكين يتاجر بشي لم يصوب إسلامكم مدوبين يا رمضان كم سوق بشو مرغور كمارو بنارت يا رمضان كم سوق بشو مرغور كمارو بنارت يا رمضان سبي ما هور بشي مؤمنين تدنو تكميدا يا رمضان سبي ما هور بشي